Brigitte Siebres iyo Michael Siebel macnaha balama badan ay leeyihiin waqti xiriir ay haystaan ha u qaadaneen inaysan idin ixtiraamaynin markay hal saac iyo bar idin la joogaan oo idin ka tagaan adinkoo hadal rabo inay idinka ay tagaan ay wenn sie ein Kopftuch tragen wird gleich nicht angenommen. Ja. Das ist natürlich ein sehr auch wenn was gelernt wird, ja. auch wenn es eine Mädchen ist, die studiert. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt bin ich soweit und ich habe es gemacht. Also Sie haben mich... Ich habe ein paar Fragen gewählt und es war, warum Frau Siebres, die hier in Darmstadt gewählt ist, nicht interessiert die politische Bildungsreise von Immigranten. waxaa halkaan la fadhiyo gudoomiye ururka oo dhinacayga fadhiyo gudoomiye ku-xigeenka iyo dhammaan guddigii ururka sida aad la socotaan labada bisha February sabtida soo socota waxaa halkaan ka dhici doona xaflad weyn oo ay nagu marti qaadeen wasiirkii hore ee cadaaladda ee Jarmalka Brigitte Siebres iyo Michael Siebel oo asna Landesabgeordnete oo heesan yani waxay arkeen in Soomaalidu ay bulshada ay ka galeen heerka afraad cod weyn ay ku leeyihiin SPD-dana taariikh ahaan waa xisbiga oo dadka bulshada dhexe iyo shaqaalaha yani mar walba xuquuqdooda u doodo marka maadaama fursadaas maantay waxaan kula talinaynaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee Jarmalka degan inay ka faa'iideystaan si aan halkaas ugu gudbino xisbigaas weyn ee SPD siyaasad ahaan waxa uu u qaban doono bulshada Soomaaliyeed ee Jarmalka nool iyo dadka yani Soomaaliyeed halkaan degan waxaan mahad gaar u celinayaa dadka ururka igula jira gudoomiye ku-xigeenka waxaan oo fursadaas noo hirgeliyay in ay noo suurta gasho iyagana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin sidaas hawsha noogu sii wada aan raxeen maanta anaga oo ah ururka Verein ururka Soomaalida ka dhisan Darmstadt gaar ahaan gobolka Hessen qaas ahaan Darmstadt waxaan halkaan maanta aan isugu nimid in uu soo codsaday ururka SPD anaga oo inaan la shirno waxaan kaga hadlaynaa dhibaatooyinka ummadda Soomaaliyeed ay ku qabto wadankan Jarmalka sida qaas ahaan sharciyada iskuulada marka waxaan ummadda Soomaaliyeed ee ku nool Jarmalka ka codsanayaa in ay fursadaas ka faa'iideystaan nagala qayb qaataan labada bisha February sidoo aadan idin sheegayba wassalaamu calaykum.